Filimka waxa uu ku bilaabanayaa tareenka dhulka hoostiisa mara oo isu beddelaya qabriga dad gaaraya 2,000 oo qof, kuwaas oo ku jira jahwareer. Magaalada waa Moscow, caasimadda waddanka Ruushka. Waa magaalo weyn, waxayna muddo dheer la daalaa-dhacaysay dhismooyin qadiimi ah, waxaana burbur ku dhow qaab dhismeedka hoose ee magaalada. Tareenka dhulka hoostiisa mara oo la dhisay sanadkii 1935 ayaa ugu dambeyn waxa uu ku dhow yahay inuu burburo, sababo la xiriira cadaadiska biyaha dhulka hoostiisa mara oo aad u fara badan darteed. Tareenada magaalada ee dhulka hoostiisa mara oo aad u fara badan darteed ayaa waxay sii kordhiyeen halista, taasoo sababtay dildilaac yar oo jebiyey albaabada godka uu tareenka maro. Inta lagu guda jiray kormeerada caadiga ah, Master Gag ayaa waxa uu arkayaa burbur yar oo ka muuqda derbiga, iyadoo biyaha ay kasoo daadanayaan saqafka sare ee godka. Waxa uuna la wadaagayaa cilada uu arkay shaqaalaha xarunta tareenada, balse digniintiisa waxaa laga soo qaadayaa wax iska caadi ah. Shaqaalaha waxay u malaynayaan oo keliya inay arrintaasi tahay biyaha dhulka kusoo daatay ee ka yimaada magaalada, kuwaas oo ay sababeen roobab culus oo maalmahanba ka da'ayay magaalada. Dhanka kale, haweeney lagu magacaabo Arena ayaa waxay habeenkaasi waqti la qaadanaysaa jaceylkeeda, waxaana la gaaray waqtigii ay gurigeeda ku laaban lahayd, iyadoo og in gabadheeda yar ay guriga kaligeed joogto. Ninkeedana waxa uu ku maqan yahay shaqada isbitaalka, oo haweeneydan waa haweeney la qabo oo caruur leh. Waxay la kulantaa nin ganacsade ah oo lacag leh, kaas oo ay jeceshahay, iyadoo rajaynaysa inay ku noolaato nolol heerkeeda uu aad u sarreeyo. Ninkeeda waxa uu ka shaqeeyaa isbitaalka weyn ee magaalada, waxayna mar walba ku fikirtaa inay ninkeeda iska furto ama ay u sheegto inay nin kala jeceshahay. Inkastoo uu ninkeeda ka shakisan yahay oo uu ogaaday xiriirka ay ninkan la leedahay, haddana waxa uu u muujiyaa inuusan fahansaneyn khaladaadka ay iyada samaynayso. Ninkeeda waa dhakhtar qalliinka ah, waxa uuna ka shaqeeyaa isbitaalka weyn ee magaalada Moscow, isaga oo helaya mushaar aad u yar marka loo fiiriyo shaqada uu qabto. Waxa uuna badbaadiyaa maalin walba bukaanno aad u fara badan. Daacadnimadiisa iyo mushaarkiisa hooseeya ayaana sababtay inay xaaskiisa ku fikirto nolosha quruxda badan ee uu ku nool yahay ganacsadahan, iyadoo sidoo kale ninkaasi ku raacday lacagta uu leeyahay darteed. Subaxdii xigtay, Andrei waxa uu ku soo laabtay guriga, waxa uuna ogaaday inaysan xaaskiisa guriga ku soo laaban. Waxa uuna sidoo kale dareensan yahay halka ay ku maqan tahay. Wuxuu isku dayayaa inuu noqdo aabbo wanaagsan, waxa uuna gabadhiisa u kaxaynayaa iskuulka. Gabadha yar iskuulka ayay maalintaasi ka daahday, sidaasi darteed waxa uu isku dayayaa inuu ku qaado gaarigiisa, laakiin gaarigooda waxa uu dhexda u galayaa ciriiriga wadada ka jira. Wadada kaliya ee u furanna waxay noqotay inay tareenka dhulka hoostiisa mara raacaan. Isla waqtigaasi, Vlad oo ah ganacsadaha ee xiriirka la leedahay Arena ayaa waxa ay wada joogaan gurigiisa. Waxa uuna go'aansaday inuu kala hadlo arrimo ku saabsan ninkeeda iyo sidoo kale xiriirkooda. Waxa uuna u sheegayaa inay kasoo tagto ninkeeda, isla markaana ay ka dalbato furiin. Marka ay ninkeeda iska soo furtana ay labadooda isguursan doonaan. Waxa uuna isku dayayaa inuu ku qanciyo arrinkaas. Vlad ayaa isla markiiba waxa uu soo dhacaya taleefan, waxaana loo sheegayaa inuu jiro kulan degdeg ah oo uu la leeyahay ganacsato kale. Waxa uuna go'aansanayaa inuu qaato gaarigiisa si uusan uga daahin kulankaas, laakiin ciidamada wadooyinka ayaa hakiyay gaarigiisa maadaama magaalada uu ka jiro ciriiri badan oo saameeyay isu socodka magaalada. Waxa uuna go'aansanayaa isagana inuu raaco tareenka dhulka hoostiisa mara. Wadada tareenka isla waqtigaasi waxaa isticmaalaya in ka badan 2,000 oo qof. Mid kasta oo dadkaasi ka mid ahna waxa uu u socdaa howlo isaga u gaar ah. Waxay dadkan ku wada kulmeen oo kaliya tareenka. Markii uu tareenka dhaqaaqay, Master Gag waxa uu ogaanayaa in biyaha uu arkay aysan ahayn biyo dhulka kasoo daatay, balse waxay ula muuqdaan biyo dhanka webiga ka yimid. Waxa uuna dareemayaa inay jirto halis aad u weyn, wuxuuna isku dayayaa inuu waco xarunta tareenada laga maamulo si uu ugu sheego khatarta meesha ka jirta. Laakiin waxaa la soo gaaray waqti aan waxba laga qaban karin. Dhowr daqiiqo kadib, darawalka tareenka lambarkiisa uu yahay 42 ayaa waxa uu arkayaa biyo aan caadi ahayn oo kusoo socda. Waxa uuna fiirinayaa dhankiisa midig, sidoo kale waxa uu arkayaa burbur fara badan oo halkaasi ka muuqda, iyo sidoo kale biyo isaga kusoo socda, kuwaas oo kasoo burqanaya saqafka sare ee godka uu tareenka maro. Biyaha ayaa bilaabay inay kusoo daataan gudaha godka, isla markaana ay gudaha usoo galaan tareenka. Si uu uga falceliyo ayaa waxa uu si degdega u istaajin karaa oo kaliya tareenka. Taasina waxay dhalin kartaa halis kale oo ah inuu tareenkaasi ku dhaco mid kale oo wadada kusoo jira, waxaana halkaasi ka muuqda khatar aad u weyn, taas oo sababi karta inay dhintaan gebi ahaanba dadka tareenka saaran. Markii uu isku dayay inuu tareenka istaajiyo, waxa uu haddana ka baqay inuu tareenka kale ee wadada kusoo jira uu ku dhaco. Sidaasi darteed waxa uu isku dayay marka hore inuu yareeyo xawaaraha uu tareenka ku socdo, si uu fursad tareenka kale ugu siiyo inuu wadada maro. Dhowr daqiiqo kadib, markii uu tareenka xawaare hoose ku waday, ayaa waxa uu tareenka ku dhacay derbiga, taasoo sababtay dhimashada dad aad u fara badan. Daqiiqad kastana waxaa sii kordhi kara dhimashada. Dhowr daqiiqo kadib, Andrei oo miir daboolmay ayaa soo toosay isaga oo jahwareersan oo aan ogeyn waxa dhacay. Waxa uu arkay dad aad u fara badan oo isdul saaran, kuwaas oo u badan
badan kuwa dhintay. Waxa uuna bilaabay inuu dadkaasi kasoo dhex baxo si uu usoo raadiyo gabadhiisa yar ee ku dhex luntay dadkan faraha badan. Waxa uuna ka baqayaa in gabadhiisa ay dadkaasi ka mid noqotay oo ay halkaasi ku dhimatay. Waxa uuna tegayaa halkii ay markii hore fadhiyeen, laakiin Tusha oo ah gabadhiisa yar ayaa waxa uu ka soo waayay meesha. Isagoo aad u argagaxsan ayuu Andrei u qaatay inay gabadhiisa dhimatay. Dhanka kale Vlad isna waxa uu bilaabayaa inuu jabiyo daaqada si uu halkaasi uga baxsado. Dadka kale ee badbaaday sidoo kale waxay raaceen taladiisa iyaga oo ka baxsanaya tareenka si ay u badbaadiyaan nafsadooda. Laakiin Vlad kuma boodin biyaha, waxa uuna fuulay saqafka sare ee tareenka isagoo u malaynaya inuu halkaasi ku badbaadi karo. Khatarta jirta ayaa sii badatay. Dadka gudaha ku jira oo aad u fara badan darteed isla markaana mar walba dhinac u yaacaya ayaa waxay sababtay inuu tareenka aad u burburo. Tareenada kale ayaa sidoo kale bilaabay inay burburaan. Vladna waxa uu isku qancinayaa inuu go'aan sax ah qaatay isagoo korka ka daawanaya dadka hoos ku jira ee uu tareenka ku burburayo. Daaqada ayuu ka arkay Andrei oo weli raadinaya gabadhiisa yar. Halkaasna koox ayaa isku dayday inay Andrei dilaan. Vlad waxa uu soo dhexgelayaa si uu u caawiyo Andrei. Waxa uuna mid ka mid ah dadkaasi madaxa uga garaacaya bir weyn. Intaasi kadib Andrei waxa uu si kadisa u arkayaa gabadhiisa yar oo jiifta kursi dushiisa. Si taxadar leh ayuu u fiirinayaa, waxa uuna hubinayaa inay nabad qabto. Waxa uuna aad ugu farxayaa in Kusha ay weli nooshahay. Sidoo kale qaar ka mid ah rakaabka tareenka saaran halkii ay dadka nool ka caawin lahaayeen ayaa waxay bilaabeen inay ka faa'iideystaan dadka dhintay iyaga oo ka qaadanaya lacagaha iyo alaabaha kale ee dadka wataan. Shaqaalaha xarunta tareenka waxay arkayaan in signalka tareenka uu istaagay, taas oo muujinaysa in tareenka ay cilad ku timid. Iyagoo isku dayaya inay fahmaan waxa ku dhacay tareenka ayaa waxay la xiriirayaan darawal tareen kale oo khadka ku soo jira si ay khadka uga leexiyaan. Waxayna ka baqayaan in labada tareen ay isku dhacaan. Dhowr daqiiqo kadib mid ka mid ah shaqaalaha ayaa soo sheegaya in godka uu tareenka marayo uu isu bedelay biyo mareen, taas oo ah musiibo weyn. Ninkan shaqaalaha ah kadib markii uu la tashaday caawiyihiisa iyo sidoo kale shaqaalaha xarunta tareenada waxa uu go'aansaday inuu yareeyo xawaaraha uu tareenka ku socdo. Isagoo og in nolosha dadka tareenka saaran ay khatar ku jirto, darawalka tareenka iyo kaaliyihiisa yar ayaa waxay si degdeg ah u aadayaan qaybta hore ee tareenka laga wado si ay u saxaan jihada uu tareenka ku socdo. Iyadoo boqolaal qof ay dhexmarayaan godka tareenka ee biyo mareenka isu bedelay, iyadoo dadkaasna ay isku dayayaan inay ka baxsadaan musiibada meesha ka socota. Dhanka kale Arina weli shaqada ayay ku jirtaa, mana oga waxa meesha ka dhacaya. Waxay isku dayaysaa inay wacdo ninkeeda si ay u weydiiso haddii gabadhooda uu geeyay iskuulka. Dhanka kale Andrei waxa uu soo jeedinayaa inay hoos u degaan, laakiin Vlad ayaa ka diidaya isaga oo sheegaya inay hoos ka jirto khatar aad u weyn, taas oo sababi karta inay dadka oo dhan ku dhintaan biyaha. Andrei waxa uu caawinayaa Vlad maadaama uu gacanta ka dhaawacmay. Maamulka xarunta tareenada ayaa go'aansanaya inay si degdeg ah u xiraan godka ay biyaha ku furmeen. Amar ayayna ku bixinayaan in si degdeg ah looga baxo isla markaana dadka meesha ku jira ay nafsadooda la baxsadaan. Argagaxa ayaa sii kordhaya iyadoo dadkana ay ka yaacayaan xarunta tareenada. Dennis waxa uu ogaanayaa in Aliza oo ah saaxiibtiis ay leedahay neefqabatin, sidaas darteedna aysan neefsan karin haddii aysan helin wax ka caawiya inay neefsato. Intii uu shilka socday waxaa ka lumay boorsadeeda oo ay ku jirtay daawada neefta loo isticmaalo, taasoo macnaheeda ay tahay inay nolosheeda khatar ku jirto isla markaana ay neefta qaban karto saacad kasta, taasoo sababi karta inay dhimato. Waxa uu samaynayaa wax kasta oo uu awoodo si uu u badbaadiyo jaceylkiisa. Waxa uuna ku guuleysanayaa inuu caawiyo isla markaana uu usoo helo daawadii iyada ka luntay. Vlad isna waxa uu adeegsanayaa eygiisa yar, waxa uuna ku tijaabinayaa biyaha. Waxa uuna hubinayaa haddii biyaha ay ku jirto koronto. Marka uu arko in eyga aysan waxyeello ka soo gaarin biyaha, waxa uu ogaanayaa inay bilaabi karaan baxsashada maadaama aysan jirin khatar korontada ka dhalan karta. Dad koox ah ayaa waxay si taxadar leh ugu dhex socdaan godka iyadoo tareenkana ay wataan biyaha kuwaas oo mar walba ku tuuraya darbiyada. Vlad waa uu dhoola cadaynayaa isaga oo ku faraxsan hadiyadda ay saaxiibtiis siisay. Waxa uuna dareemay in noloshooda ay gabagaba tahay, sidaas darteedna waxa uu Andrei u sheegay inuu xiriir la leeyahay xaaskiisa. Andrei waxa uu ku dhahay wax walba waan ogahay, waxaan ogahay inay xaaskayda ay khiyaanto iyada oo xiriir kula leh. Waxa uuna u sheegay inay arrintaasi tahay waxa uu markii hore ogaa. Andrei waxaa laga dareemayaa inuu aad uga niyad jabay xaaskiisa. Qaar ka mid ah dadka badbaaday ayaa waxay heleen albaab hoose, kaas oo u horseeday inay galaan qol u dhow iyagoo oo go'aansaday inay tahay inay qaadaan tallaabo si ay u badbaadiyaan isla markaana u baaqaya dadka kale inay wadadan soo qaadaan. Kooxdan ayaa go'aansaday inay garaacaan qalab meesha yaalla si loo maqlo. Dennis, Andrei iyo Vlad ayaa isku bedelaya mar walba garaacista, waxayna sidoo kale isku dayayaan inay garaacaan birta
si ay u noqoto mid fudud oo laga bixi karo. Kooxda ayaa waxay ogaadeen in haddii aysan helin marin ay ka baxaan ay ku dhiman doonaan biyaha xooggan ee soo socda. Dhanka kale, kooxaha gurmadka degdega ah ee u socda godka ayaa waxay la kulmayaan dad aad u fara badan, kuwaas oo u baahan badbaado. Dhanka kale, Arena ugu dambeyntii waxay ogaatay dhibaatada ka dhacday godka uu tareenka maro, waxayna ka daawatay TV-yada, iyadoo sidoo kale isku dayday mar kale inay wacdo ninkeeda. Markii uu taleefankiisa dhici waayeyna waxay ogaatay inuu ka mid yahay dadka meesha ku xayirmay. Isla markiiba waxay ku carartay isbitaalada, laakiin waxay soo ogaatay Andre oo ah ninkeeda iyo Kusha oo gabadheeda ah inuusan midkoodna ku jirin liiska dadka soo dhaawacmay iyo kuwa la soo badbaadiyey. Waxayna taasi shaki weyn ku abuurtay Arena inay labadooda ka mid noqon karaan dadka dhintay. Valad ayaa waxa uu shaqaynaya taleefankiisa, waxa uuna wacaya Arena isagoo u sheegaya inay ku xayiran yihiin godka hoose ee uu tareenka maro. Waxa uuna u tilmaamayaa halka ay joogaan. Marka uu maqlo mid ka mid ah shaqaalaha tareenada ka shaqeeya, si degdeg ah ayuu u fahmayaa halka ay joogaan. Waxayna u muuqataa in shaqaalaha gurmadka degdega ah ay ogaadeen halka ay joogaan dadka badbaadada u baahan. Gurmad degdeg ah ayaa loo soo dirayaa. 5 daqiiqo kadib, kooxaha gurmadka degdega ah ayaa soo gaaray, laakiin Valad isaga wuxuu eedeynayaa jaceylkiisa Arena, isaga oo ku sheegaya inay iyada sabab u tahay inuu daaho, isla markaana uu ku qasbanaado inuu soo raaco tareenka. Waxaa aad u xanaaqay Andre, waxa uuna ku dhawaaday inuu biyaha ku qarqiyo Valad. Kooxaha gurmadka ee banaanka joogana waxay maqleen qaylada qofka, sidaasi darteed waxay heleen rajo ah in dadkan la badbaadin karo. Iyagana dadka gudaha ku jirana markay ogaadeen in banaanka laga maqlay, aad ayay u farxeen. Xarunta tareenada ayaa bixisay amar degdeg ah, waxaana la xiray godka. Heerka biyaha ayaa aad u kacay, waxayna gaareen saqafka sare. Kooxaha gurmadka ayaa dadka ka soo saaraya godadka iyaga oo soo marinaya waddo loogu talagalay. Susha ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay oo arkay iftiinka qoraxda, waxayna ku booday hooyadeed iyada oo laabta ka gashay. Aliza iyo Dennis oo jaceylkooda muujinaya ayaa iyagana loo qaaday isbitaalka. Andre waxa uu arkay xaaskiisa, laakiin waxa uu isku dayayaa inuusan la hadlin. Gacanteeda ayuuna iska fujinayaa si uu isaga ilaaliyo taabashadeeda. Isla waqtigaas, darawalka Valad ayaa soo gaaraya meesha, isagoo raba inuu qaado ganacsade Valad oo sidoo kale ah jacaylka Arena. Arena ayaana waqtigaasi kala dooratay jacaylkeeda iyo sidoo kale ninkeeda. Waxayna raacday ninkeeda iyadoo halkaas uga tagtay oo aan xitaa salaamin saaxiibkeed. Waxayna u muuqataa inay ka qoomamaysay qaladkii ay ninkeeda iyo gabadheeda yar ka gashay. Andre, inkastoo uu iska diiday inuu la hadlo Arena, haddana waxa uu la raacay ambalaasta si loo soo baaro isaga iyo gabadhiisa yar. Filimkana waxa uu ku dhammaanayaa iyaga oo ku sii socda isbitaalka. Halkaasina waxaa ka muuqata in ninkan uu gabadhiisa yar u huray naftiisa si uu u soo badbaadiyo. Halkaasina uu ka helay jacaylkiisii. Haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar kuna soo biir channelkeena adigoo subscribe taabanaya.